hagaajinta iyo dayactirka qaar ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa ah qorshaha ugu weyn ee maamulka degmada Galkacyo ee Galmudug. Wadooyinkan oo dhaxmara xaafadaha magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka shaqeynaya mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulka degmada Galkacyo oo kaashanaya bulshada ku dhaqan qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Galkacyo si wax loogu qabto wadooyinka burbursan iyo sidoo kale kuwa ay xireen biyaha xaafada ka tirsan magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug. محمد علي حرسي قدومي كحوجينك مامل كدقمة Galkacyo ayaa waxa uu sheegay galabta oo bishu tahay toddobadii bishii saddexaad 2020 waxaan ka shaqeynaynaa wadooyinka halbowlaha oo magaalada Galkacyo hadda ka horna waxaan ka soo shaqeynay ilaa 4 iyo 5 wado ayaan soo habayna soo sameeyay soo carab wixinay meelaha waxa weeye meelihii biyuhu ay aad u fariisan jireen oo go'naa weeye wadadaasaan galabta furaynaa waxaan marka ka hadlaynaa oo kaga faa'iideysanaynaa galabta saxaafadda magaaladan waxay u baahan tahay laba qaybood ayay u baahan tahay labadaas qaybood oo ah nabadgelyo oo xagga ammaanka baryahan maaragtay uusan fiicnayn oo dhalinyaro maaragtay bahashii qamra cabta ay himiinkii ku soo macnaha ku soo dheelmato oo magaalada geeseed inta fariistaan bay magaalada ku soo funaanayaan. سعيد salaad cilmi gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee degmada Galkacyo ee Galmudug oo ka hadlay dhismaha iyo dayactirka lagu wado qaar ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan Galkacyo ayaa waxa uu tilmaamay محمد على حساب الشيء حقيقي gudoomiyaha sheegay waa mudabirahan ku jirnaa hawshan waxaana magacaabay Madaxweyne Ahmed Ducaale kadib markii xilligiina uu dhamaaday dadka mas'uuliyadda gobolkan hay'adaha iska danaysteen oo siyaasado iyo wax ayaga aan loo dirsan iska dhaxgaleen inta muddadaas bisha ahayd waxaan qabanay wax muuqda 20 casho waxaan ku jirnay qashin xaqid magaalada oo quftay ilaa iyo mataqaana 180 lowd oo qashin magaalada ka saarnay usbuucan kii hore waxaan bilownay inaan jidad xiran oo biyo gooyeen oo caafimaadka qarribay kuwa dhagax ku xiran yihiin kuwa laga dhistay buushawse iyo xaraari inaan furno jidkan waa jidkii lixaad weeye oo hadda aan ka shaqeynayno ilaa 30 lowd oo mataqaana rakaawaha saarnay baan dhibnay galabtana waxaan u soconaa inaan bal jidkii furno rakaawadii kala bixino annaga hawshaasaan ku jirnaa dad xildoona ma nihin dad hunguridoona ma nihin waxaan mahadweyne qoranaynaa dadweynaha oo gacan lagu siiyay intii aan shaqeynaynay oo dhaqaalihii iyo tan iyo markii la magacaabay maamulka ku meel gaarka ah ee degmada Galkacyo ee Galmudug ayaa bilaabay wax ka qabashada ololaha nadaafadda iyo sidoo kale hagaajinta iyo dayactirka qaar ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Siraaj Yuusuf, Galmudug TV, Galkacyo.